waxaynu kaga soo horjeysanaynaa maxaa ka dhacay laascaanood, maxaa ka dhacay ciidankii qaranka, maxaa ka dhacay caynaba, maxaa ka dhacay oog, maxaa ka dhacay wixii xaggayda ka xigay baynu wax ku dooranaynaa. ku fashilmeen nabadgelyadii, waxay ku fashilmeen inaynu soo ururay oo maanta aynu ku soo ururay caynaba, oo maanta baynu leenahay wixii aynu dooranayno dib eegno, xaq baynu u leenahay oo gar baynu u leenahay in qofkii 7 sano horteed aynu dooranayno eegno muxuu qabtay. islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horeyn waxaan aad iyo aad u taageersanahay dadkan shacabka ee fara badan ee halkan isugu yimi ee u dhabar adayga roobka da'aya oo dhabar adaygay waqtigan ku adag in ay halkan isugu yimaadaan. aanu arkaynay magaalada caynaba in ay tahay magaalo runtii u soo baxday maanta maalintoodii oo dad fara badan oo weli halkan soo gaadhin ay soo socdaan. ugu horeyn waxaan idinkula dardaarmayaa nabadgelyo. doorasha iman doonta 13 of November waa caynaba dad walaalaynu nahay, dad wada degan baynu nahay, dad wada joogaya baynu nahay, dad wada joogi doona baynu nahay. waxaan idin sheegayaa oo idin farayaa Eebbe subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay naga wada barayaa in ay doorashadaasi inoogu dhacdo nabadgelyo. Eebbe subxaanahu wa tacaala idinkii waxaa kaloo idinka baryayaa aad idinka baryayaa inaan idin kala fogeyn doorashada dhacaysa alla in idinka isku haraya. waxaan jeclaan lahaa musharaxa cid kasta ay u foodayso waa musharaxa aynu doono dalkan iyo dadkan inaynu dooranno, ama xisbi ha noqdo ama madaxweyneba ha noqdo. waxaan idinku dardaarmay mar labaad in aad ku midowdaan oo aan idinku kala kaxayn musharaxiinta aad kala dooran doontaan Eebbe subxaanahu wa tacaala. midnimo ayaan Eebbe subxaanahu wa tacaala idinka rajaynayaa, nabadgelyo inaad ku foodaan baan idinka rajaynayaa, walaalnimo inaad ku foodaan baan idinka rajaynayaa, inaad isku soo dhawaataan baan Eebbe subxaanahu wa tacaala idinka rajaynaya. taas haddaan halkaa ku dhaafo. qodobka labaadaan leeyahay waxaan anigu halkaymi 2017 wada kulmiyaynu ahay. anigu kulmiye raggii hogaaminayay baynu ahay, raggii madaxweynaha muuse biixi hogaaminayay baynu ahay. doorashadaa 7 sano dabadeed xaq baynu leenahay inuu deebiyo isku samayno, xaq baynu leenahay wixii aynu dooranayno dib eegno, xaq baynu u leenahay oo gar baynu u leenahay in qofkii 7 sano horteed aynu dooranayno eegno muxuu qabtay. waxqabadka uu qabtay baynu maanta ku dooranaynaa. haddaynu u arki weyno in aanu madaxweynihii waxba qaban, xaq baad u leedihiin oo gar baad u leedihiin oo dadnimadaa ku jirta oo diintaa ku jirta inaad ka foodaan, aad u foodaan qofkaad is leedihiin. Eebbe subxaanahu wa tacaala 5 sano dambe ayuu ina anfici doonaa. waxaynu ku dooranaynaa oo aynu kaga soo horjeysanaynaa madaxweynihii aynu haynay shalay. waxaynu kaga soo horjeysanaynaa maxaa ka dhacay laascaanood, maxaa ka dhacay ciidankii qaranka, maxaa ka dhacay caynaba, maxaa ka dhacay oog, maxaa ka dhacay wixii xaggayda ka xigay baynu wax ku dooranaynaa. cidda ka mas-uulka ahayd ee dalka aynu u dhiibnay ee keentay ee sababay wax kastoo dhacay waxa uu weeye qofkii aynu dooranay oo ah madaxweyne muuse biixi cabdi. yaan la labalabayn oo lagu labalabayn qof kale oo aan xilka yaan aniga xili maynu dooran, gudoomiye xil maynu dooran, cirra xil maynu dooran, wasiirada ilmaadirayaashina walaaladeenna halkan wada jooga xil maynu dooran. waxaanu dooran madaxweyne muuse biixi cabdi oo kaliya. waxa labaynayaa waa madaxweyne ku-xigeenka. waxay ku fashilmeen sool, waxay ku fashilmeen ciidankii qaranka, waxay ku fashilmeen nabadgelyadii, waxay ku fashilmeen inaynu soo ururay oo maanta aynu ku soo ururay caynaba, oo maanta uu dagaal hadduu dhaco oo Eebbe subxaanahu wa tacaala dagaalba inooma keenee caynaba iyo og baa ku xigta hadduu dagaal dhaco. maxaa keenay oo sababay madaxweynihii qaranka ee fiicnaa ee quruxda badnaa ee 2017 aanu 100 cod ku dooranay ee aanu ku soo ku fuulnay baa sababay oo keentay taa maanta. taasaynu kaga soo horjeysanaynaa. madaxweynaha waxaan ku ammaanayaa inuu doorasho qabtay. madaxweynaha waxaan ku ammaanayaa inuu mujaahid ahaa. madaxweynaha waxaan ku ammaanayaa inuu ahaa dadkii dalkii dhulkan u soo doortay ee u soo dhintay ee u soo halgamay. laakiin taas macnaheedu ma hadduu khaldamo inaan dib ugu doortaan iraahdo waa kii berigii fiicnaa. laakiin 7 sano oo dambe 5 sano oo dambe madaxweynaha uma dooran karo. waxa aynu dooranaynaa wax cusub baynu dooranaynaa. madaxweyne cusub baynu dooranaynaa. madaxweyne aynu ridnay shalay baynu dooranaynaa. madaxweyne aynu maanta aynu doonayno inuu mar labaad isna taskarayno ayaynu maanta dooran oo ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. waxaan jeclahay inaynu ku midowno oo aynu isku raacno inaynu dooranno qof cusub keeno. Eebbe subxaanahu wa tacaala isna waxaynu ga baryaynaa inuu noqdo kii dalka lagu midoobo, inuu noqdo kii jabhada aanu ku abuurin, inuu noqdo kii buura aan lagu gelin, inuu noqdo kii aynu dalkan iyo dadkan aynu ku aamin lahayn. Eebbe subxaanahu wa tacaala dartii intiidii 5 sano dabadeed baynu siiman doonaa wixii nool. isna saasoo kale inuu qiyaasi doono ee eegi doono. laakiin yaan laynaga dhaadhicin
nidaamkii 7 sano hortii aynu dooranay oo inaynu 5 sano aynu dooranay madaxweynaha quruxda badnaa Muuse Biixi Cabdi 2 sano ku dirsaday I think inaan cadaalad inagu ahayn oo aanay gar inagu ahayn oo aanay raganimo inagu ahayn intaynu dooranay oo korsay inuu mar labaad inagu yiraahdo haddana ay doorto war ma cadaalad baa taas war ma gar baa taas war ma dadnimo taas war waxa halka ka dhacaya oo la sababeynaya ma aniga mise adiga mise inaga qofka aynu dooranay sababeyn reer Caynaba oo ilmaadirayaal ku bahooba inaynu qof cusman aynu ka baxno qabiyaalad aynu ka baxno reernimo aynu eegno dadka kale dalkayna la leh dadka kale dalkayna la leh reeraha kale dalkayna la leh inaan iyaguna xaq bayno inoogu leeyihiin inaynu taskareeno qofkay wataan iyadana aynu la eegno sidii innagaba laynoola eegay sidii aynu uga la eegnay abtiyaashayna aynu la eegnay xaq bay iyaguna inoogu leeyihiin doorkan inaynu isla eegno ninka ay wataan oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo Maxamed Cali oo isna ka dhashay gobolka Boori waxa ku soo gabagabeynaya mar labaad waxaan ku codsanay waxbaan xalay maqlayaa reer Caynaba waxa ku kala tagina food high school laynina food high school laynina dad dooranaysaan oo ku walaalooba oo idinku gacmaha haysta bedelu qofka doonaysaan inad bedeshaan qofka aad doontaana aad insha Allah taala aad ku soo dhaweysaan kursiga mar labaad iyo mar saddexaad nabadgelyadaasaan kula dardaarmay waxaan kula dardaarmay aan kaga tagayaa annagu martibaan nahay odayo kala Cabdiraxmaan Cabdiqaadir la yiraahdo wada garanaysaan oo aad dasheen oo gobolka u dhashay isna ila socda oo isna midkiisa idin oran doono waxaan idin kula dardaarmay nabadgelyo waxaan idin kula dardaarmayaa in aynu madaxweynaheena aynu shalay dooranay in aynu ka nasno dalka iyo qaranka dadka wassalaamu calaykum